carriga Soomaaliyeed balse aan ka iman meel ka baxsan dhulkaas Soomaaliyeed ee isaga ah. beelweynta Gabooye oo ka kooban beelaha kala duwan ee hoostaga saan tilmaamay waxay la degaan oo degaan wadaag la yihiin dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyagoo la qaaraan ah qabiil kasta oo ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed ee dega carriga Soomaaliyeed. saas awgeed waxaa la oran karaa in arrinka tirada iyo ballaca isaguna ee degaanka baaxadda dagaalka degaanka ama dhulka ama juqraafik ahaan ay ku sugan yihiin ama degaan bulshada Gabooye ee tahay baaxad aad u weyn iyagoo la qaaraan ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo qabaa'ilka hoostaga. halkaas iyadaana laga garan karo ballaca iyo baaxadda iyo tiro badnaanta ay ku sugan tahay beelweynta Soomaaliyeed ee Gabooye. run ahaantii beesha Gabooye marka loo fiirsado had iyo jeer waxaa lagu dhiftaa carabka in dhibaatada ugu weyn ay beeshu ku sugan tahay ama la kulanto inuu yahay arrinka takoorka guurka iyo isdhexgalka ay la leeyihiin guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. balse marka loo fiirsado ama si qoto dheer loo milicsado dhibaatada ugu weyn ee saamaysa beeshaas iyada ah ay ku sugan tahay waa arrin run ahaantii ka baxsan ama dhaafsiisan oo ka weyn arrinkaas isaga ee bulsho isagoo gaadha inay tahay beeshaas Gabooye iyo guud ahaan beelahaas kala duwan ee tirada badan ee hoostaga ee xusan magaca Gabooye inay yihiin beelaha Soomaaliyeed oo keliya ee aan lahayn degaan dhuleed oo si gaar ah iyaga ugu magacaaban ama ay u qoondeeyaan ama maamulaan taasoo ay la degan yihiin beelo kale ee Soomaaliyeed. degaanaday ku sugan yihiinna ay yihiin degaano ku xusan magaca beelahaas iyaga ah ay la degan yihiin ama run ahaantii ay dhulka la wadaagaan iyo masiirkaba balse ay yihiin beesha keliya ee ka caagan aan loo oggolayn inay degaan gaara yeelato ama lagu xuso oo loo garto inay qayb ku leeyihiin degaanadaas iyaga ah ay ku xusan yihiin iyadoo arrinkaas isaga ah lagu daboolayo arrinka qaaraanka ay la wadaagaan beelaha Soomaaliyeed. run ahaantiina arrinka qaaraanka